midaan saaxiibana wuxuu guriyaha waa la yaaburi intaas oo guri waxa arkay oo dabaqii ah si loo dhisay ninka iskala markuu dhameeyo wuu dhintaleed maqleen maxaa ku dhacan waan xilligii umawiyiinta oo uu khaliifka ahaa hogaamiyaha ahaa Hisham yaa waxa la way xajiyeen asoo xajinaya oo kacbada dawaafaya yaa wuxuu arkay nin la yiraahdo Salim bin Abdullah bin Umar bin Khattab Umar bin Khattab waa taqaanaan yani abtirkiisa nin ku jira yaa adduunyo xaalkan ka taagan waxa la arkay asagoo kabiisuna ay googo'an yihiin dharka uu sitana 2 dirham uu san dhanay waxa uu qaba dhar adduunyo sida ay ka taag kabiisuna ay go'an yihiin oo gacantu iskaga wato kacbadu dawaafay marka madaxweynihii xilligaas ama khaliifkii xilligaas Hisham yaa arkay marka wuu yaqaanaa wuxuu ku yiri intuu soo dhawaaday wax dan ah oo aan ku qabto oo di weydiisanaysa ma jirtaan markaas intuu fiiriyo soo la yaaban oo xanaaqsan wuxuu ku yiri ama tastaxyi niyow maadan xishoonayni baytullaahi baan ku jirnaa kacbada ilaahay baan joognaa markaas waxaad iga rabtaa ilaahay qeyrkii inaan dantayda u sheegto miyaad weydiinaysa miyaad xishoonayni wuu yaabin isku khajilay nin dhowr madaxweynaha oo laha maanta qofkan fursad baad siisayba wataan idin laha ka warama tacliiqa hadii maanta madaxweynuhu ku yiraahdo maxaan kula qabtaa jaag ii qor la dheerayd intaas milyan ku qoran tahay ama meeshaas ii magacaw ama saas waa dadka adduunyada la weyntahay Salim wuxuu ku yiri warniyo ma xishoonayni bayt ilaahay kacbada baan joognaa markaas waxaad rabtaa ilaahay qeyrkii inaan dantayda u sheegto warniyo iga leexo bas wuu iska dhaafay wuu khajilay wuu xishooday laakiin korbu kala socday wuu fiirinay bal meeshuu ka baxay iyo yani dareen ayuu geliyay markii dawaafkii la dhameystay oo banaanka loo baxay kor suu uga fiirinay markuu arkay inuu masaajidka ka baxay banaankiisa uu joogo yuu ka daba tagay wuxuu ku yiri hadaay masaajidka ku jirtay inaad dan i weydiisato waad i diiday hadda banaanka masaajidka joogtaaye dan i weydiiso maxaan ku qabtaa markaas wuxuu yiri waxa aan ku weydiiso ma dan adduunyaa mise waa dan aakhira horta markaas yiri dan adduunyo maxay dan aakhiro ilaahay bas la weydiisan kara oo aakhir ilaahay baa iskale oo asaga wax siin kara anaga aakhir wax ma bixin karno laakiin adduunyada danteeda i weydiiso waxba aan yahay markaas wuxuu ku yiri Hishaamow ilaahay baan ku dhaartay ilaahiga adduunyada iskale ayaan weydiisanin adduunyada inuu siiyo maxaad u maleen qof aan adduunyo lahayn seen u weydiisana marka aan ilaahay baa weydiisan ilaahay adduunyada si ma badhaaba aniga markaas waxaad rabtaa adiga oo adduunyo aan haysan leenaga madaxweynaha ama boqorka ma adduunyo haystaa bari asoo meydkii soo bixiya u dambayso kullu nafsin daa'iqatul mawt qof noocaas marka adduunyo aan haysanin wuxuu ilaahiga adduunyo iska lahaa baan adduunyo weydiisanin baan anigu iska dhaaf qof adduunyo aan haysanin oo waxba ahayn oo anoo kale inaan adduunyo si aan iraado warna hor shaqeeyo shaqo maliid marka dadkii ilaahay yaqaanisaas adduunyo innagana maanta maxaan taaganahay wasaaradda hebel hadaan reerkeena la siinin oo reerkeena wasaaradda hebel maxay ka rabaan dhacdhac bay leedahay oo dadka arkaan dhacdaan warama wal xishoona ka war wasaaraddaas aqooyada taas reerkeena la siiyo taas wax ma yaalaan dadkaas ma dhismaay marka dadkaas ma meel u socdo marka waxaan isugu sheegay waxay tahay war adduunyadani waxba ma aha in allaha yu'di ad-dunya man yuhibbu wa man la yuhib ilaahay adduunyada wuxuu siiyaa qof uu jecel yahay qof uu jecelayn ba wala yu'di ad-din illa liman yuhib laakin diinta ilaahay wuxuu siiyaa qof uu jecel yahay oo kali ah marka qofka ilaahay diin u waafajiyo istiqaamo uu siiyo fahma xaqiiqadan adduunyada inay tahay wax yar oo maalmo la joogay oo tarasad lagu yahay waxaan waqti iskaga ma qaadaayo ilaahay wuxuu tilka daarul aakhirah naj'alaha lil ladina la yuriduna علوا في الأرض ولا فسادا يعني هذا نوع حين يسمح يتاه هذه أي أهان لا الإسلام كوجو تلقى المسؤولية ده مسؤولية الإسلام كوجو تلقى له أذيك دتك الله قبنايو أو قف كي ربنا إنه دتك وأذيكه إنه يراهدو أنا وأن أذيك كراي ما يدين أذيكه هذو ساس يراهدو أو اللي يراهد كاره إنه أذيكنا أهلا وسهلا وأذيكه يا هذه ما أذيك هذا مرة بلنا وما سنتين هذا إنه كنا دي أذيك أنا ربنا meel kale umada uga adeego oo tiro badan ayaa jirta halka markay marayso ayay baraka leedahay laakiin hadda waxa taagan aan umada u adeega ma aha aan umada ka adeegteeni oo meel idib muslimata war umada yaa laga adeeganina umada loo adeego intaas aan soo imaano umada in loo adeega raba kullukum raa'in wa kullukum mas'uul an ra'iyati in umada loo adeego sayyidina umar ayaa wuxuu magacaabay ninkii dhijray saciid bin aamir al-jumahi gudoomiye gobol uu magacaabay saciid bin aamir wuxuu ku umar ilaahay baan kugu dhaariyay hay fidnayn inay dhaaf gudoomiye gobol ha ii magacaabin faraha iga qaad markaas wuxuu ku yiri
weylakum inkaar haydu ku dhacday oo yani hadal canaan ah aniga mas'uuliyadii weynayd ayaad korka iga saaraysaan markaasaad iiga kala baxaysaan miya wallahi inaan ka yeelin waan ku dhiibaya gudoomiyaha gobolka maxay noqotay marka koona wuu diidan yahay koona wuxuu ugu dhiibay wuxuu leeyahay war mas'uuliyadii ka weynayd ayaa ana culays uga ah sayidina Umar markii oo toorida lagu dhuftay ee dhaawac u ahaa yaa waxa wiilkaaga Abdullah ibn Umar يعني أقر أصلها كبدله سيد هذا لو يقانو دحل سوجها وهذا ما قشنا ولي دحل سوجها ويل كا دحل سوجها كده قال لي أو مركز أضوء لما تأسوا ماشي هقبته مركز سحول حساب يدب قيس كأن كسر جد على خطاب لي هذا أنا جا أيا أوفر وحي أنا جا إيجاري قف كلا إيه كي جا أنا إيجار المرة بقول هذه هي المسؤولية قف كي مركز ساس لو مد وعد يجينا سؤال هذا كي كلا ربنا والله أنا يحبك قاضين أديكوا صح النقضي وإنكار يكون عضي وعذره يبلايين يعروته وكاحماتي يوحى صدق ودمر دايان أياد ماشي كتيسا ومدنا الصومال ما أنت ماشي ما له سوارتين والبحر مجال بنانك وقبح ضد كان أما بركعة كو إماضي أما بلديها جوجا ظروفته كم موقت عد مقر أي سنجرين يصير عيتاي قفك مقعود المسؤولية أنتو كقاعدة هذا أن كور قبل كاس أصعد بعد قبل ما كان مال أرض يمال لك أرض ماشي ما تعلم qof kasto umada meeshu ugu adeegi karo ha ugu adeego hadaadan umada u adeegi karin ugu yaraan dibka ka daa nabi sallallahu alayhi wasallam subax kasto oo waaga bariyo qof kasta waxa ku waajibaysa sadaqa inuu bixiyo markaas waxay ka waran duusan haysan wuxuu wax sadaqaysto markaas wuxuu gacantiisa ku shaqeeyo naftiisana ha anfaco asna ha isanfaco markaas wuxuu raaduna shaqeeyna markaas wuxuu yaamuru bil ma'ruf wanaaga dadka uu sheego markaas illa ma yafcal haduna sameynina markaas yumsiku aan shar dadka dibka la ka daayo sadaqa ayay u tahay marka ugu yaraan hadaa waxba dadka siinay hadaa dibkaaga la nabad galo intaas sadaqa ku marka imma ina sadaqa baxsato dadka adeeysid wa imma ina inta wax ku darto dadka wax u qabatid oo dadku waaleertid intaas adduunyo ugu soo dhawow saana dadka ugu shaqee adduunyo intaas qiimo ku leedahay laakiin marka tiraado waan ka shaqeysanaya waxbaan aruurinaya alladhi jama'a maalan wa addadahu wadayashi hore culimadana waxay dhijireen banaw ما سكنوا ويدسن من أين الدجين مثلا صاحبنا وحيد قرية وين الله يوري أنت سو قرية وحارك بقى طبقية سي لورد ساي نك إسكال مركو دميو وأنت لاد مقلة ما حكود عنوان مركو دميو ودمنا ومحاجر مثل ما سوق فكرة وحصول رادي وقف فكرة عذرنا كود عورة مركو دميو قرية وتام لقضاء أنت سو دلقوا وياي ميت كسب حيلك وحيد بنوا ما سكنوا هاي بعد كده جمعوا ما أكلوا ويسووا ريان من عين عنين ويكتجن والواحد نوع عاسة يعني ضد كل جدلين يعني اسكن عن يعني لقد نجن هالباب هدي له وصيان وفي عيه ويسي هدو كسين وأنا وحناقة يا القرآن كواس حويق أنا منافقين وحاله كوا حاجرة إذا أعطوا منها رضوا وإذا لم يعطوا منها إذا هم يصعدون هدي له سيان الحالة نقولنا هدي له جيدنا وحناقة ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون هذا يساعد إلى هاي وقال له واحد إلهي باب بحية كوب شاه وإلهي وسنكو قرن عبي ميس كوب شاه وإلهي كو قرن كوقف ومايو ما يسولي بعدي ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده سوكم وردنس ما كان سعادتك بحنا اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت إلى وحضو أطريات العد كيني كرتماله wixii aad siisan cidig celin karta male saasa qalbigu ku daga oo xasilooni lagu helaa marka adduunyadu waxay la mid tahay sida waxa leeyahay waa hooskaaga oo kale afmameega waxa dhana Solomon markii wax la isku xujeysanayo diin leeyahay diin leeyahay ama googaalays googa agale diin leeyahay hadal baa la yiraahdaa roori deeri waay sheegalay marka roori deeri waay waan orday waan gaari waay hayo sheeg maxaa laga wadaaliyo hoosna awtaw hooskaaga roori deeri way hoosna awtaw mar hooskaaga waayo macna bal hooskaaga eeri adoo kaas si kasta dad ordo hooskaaga ma soo qaban kartid adduunyadu waxay la mid tahay sida hooska oo kale hadaad erido oo ku ordo way ka carartaa hadaad ka carartana hooska hadaad ka cararto asaa ku soo daba raacay marka adduunyaha ku ordina ka orda saydiin soo daba ordo waa maasantii